waxaan ka hadli doonaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala markaynu baryayno ee aynu gacmaha hoos dhiganayno waxa haboon laba arrimood inaynu ogaano kow maxaa intaynan Ilaahay baryin oo aynan gacmaha kor u qaadin maxaa laynaga doonay aadaabta ama anshaxa laynaga rabo xilliga Ilaahaynu baryayno soo kale waxaan ka hadli doonaa xilliyada maartay hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala la baryo maartay la og yahay ama la garanayo Ilaahaynu ka aqbalay oo Nabi Ilaahay Maxamed alayhi salaatu wasalaam si gaar ah u sheegay ducadu waa nimcooyinka Ilaahayna siiyay waa meel aynu hadii jeer dhibaatada kaga baxno ducada iyo Rabbi barigo waa meel ay tahay mar walba inaynu la soo ogaano oo aynu ogsoonaano iimaanka iyo maskaxda aynu ku hayno hadaba ducadaasi Rabbi barigaasi waxa la doonayaa aadaab inay yeelato dad fara badan baa Ilaahay baraya laakiin waxa laga yaabaa qofkaasi aadaabta iyo waxyaabaha muhiimka inuu baal maro oo barbar maro ayaa laga yaabaa marka kow Ilaahay markaad barayso horta qodobka ugu horeeya al-ikhlaas lillahi ta'ala ducadaada u baraxtir ducadaada u gaariyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala cid kale inaad wax kaga doonto iyo in lagu arko Ilaahay bal wuu duca badan yahay amba Ilaahay buu in badan barayaa maankaaga ee maskaxda marnaba ay soo galin marka Ilaahay barayso waana cibaado walba shardiga laga doonayo weeyaane waa in ay kali u tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo cid kale aanad ku lahayn qodobka labaad ducada waxa laga doonayaa inaad ku furfurato amaanta Ilaahay kadibna amaanta Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam Ilaahay amaan kadibna Nabi Ilaahay Maxamed ku salli oo amaan kadibna baahidaada iyo ducadaada waxa Ilaahay weydiisanayso gudaha ka gal qodobka saddexaad ducada waa inaad goysaa ayaa la doonayaa waa inaad kalsooni boqolkiiba ku qabtaa hadii Ilaahay aad barido inuu Ilaahay ka aqbalayo waa Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam Ilaahay bariya idinka oo yaqiinsan oo aaminsan in la idinka aqbalayo qodobka afraad ducada waa inaad ku celceliso ayaa la doonayaa al-ilhaah fi ducaa ducada waa in lagu celceliyo isla markaana waa inaan laga caajisin oo aan laga daalin isla markaana waa inaan la dedejisan miraha iyo maartay waxa resultiga ama natiijada ka dhalanaysa ducada maartay waxa weeyaa nabiga kaleey salaatu wasalaam maalintii dagaalkii Badr ee gaalada ay sahayanay cadawga waxyaabaha lagu xasuusto waxa kamid ah inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad u bariyay ilaa Abu Bakar oo ag taagnaa ulaha Ilaahay wuu ku aqbalay oo ku ajiibayay xasbuka ya rasuulullah intaas kugu filan marka nabigu aad buu ugu celcelinay Rabbi bariga iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala guusha inuu siiyo marka ducada waa inaan ku celcelino waa inaan hariyo habeen Ilaahay barino ayaa laynaga doonaya qodobka shanaad qalbiga waa inaan soo xaadirno aadaabta qodobka shanaad qalbiga waa inaan soo xaadirno Ilaahay subhanahu wa ta'ala kama aqbala ducada qalbi gaafil ah ayuu nabigu yiri oo sii jeeda oo marka maankiisu maqan yahay qodobka lixaad waxa la doonayaa naftaada inaad u duceyso kadibna ehelkaaga ku xajiso iyo qaraabadaada kadibna ummadda muslimiinta si guud inaad ugu duceyso ayaa la doonayaa ducada waliga kaliga ha isku soo koobin qodobka toddobaad waxa la naga doonayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala magaciisa wanaagsan ee midba midka kale uu ka sii qurux badan yahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku barino oo Ilaahay baa wuxuu leeyahay walillahi al-asmaa'ul husna fad'uuhu biha Ilaahay wuxuu leeyahay magaciisa wanaagsan kuwa ku barya ya rabbi يا ذا الجلال والإكرام يا غفور رحيم يا أرحم الراحمين مقاعدة ونعيسنا فرحة بدن لي صفات كإلهي أين إلهي كبرينا نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحو أركي نن وحويا إلهي بريا أو إريدا صعدا نكاس وحو لي اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت لا إله إلا أنت الأحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مركاسنا وحو عليه الصلاة والسلام إلهي بان ku dhaartay gacanta imaarta nafteeda gacantiisa ku jirta ee laqad sa'ala Allah bi ismihi la'adam ninkaas Ilaahay wuxuu ku diistay magaciisa weyn oo ida duciya bihi ajaab oo hadii Ilaahay lagu baryo Ilaahay oo aqbalayo wada su'ila bihi aata hadii waxa lagu weydiistana Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo waxa bixinayo oo siinay marka magaciisa Ilaahay wanaagsan in Ilaahay ku barino ayaa la doonayaa ya rabbi ya rabb inaan kulmada ku celcelino anbiyaduna mid kasto Ilaahay baraya rabbi ayuu ka bilaabi jiray suurada al-baqara dhamaadkeeda rabbana la tu'akhidna ila ya maarta dhamaadka suurada waa rabbana waa ku soo noqonaysa suurada al-imran ila ya maarta lagu soo gabagabeeyay innaka la tukhlif al-mi'ad rabbana marka eriga rabbana waynan ku celcelino markan Ilaahay subhanahu wa ta'ala barayna qodobka labaad xilliyo waxa jira iyadoo aan ducadu lahayn daawadayaal xilliyo go'an aan lahayn ee mar walba iyo goob kasta iyo xilli walba laga doonayo Ilaahay inaad barido ayaa wax kastana Ilaahay aad subhanahu wa ta'ala weydiisato oo banaan dabcan
waxa iyaduna jirta xilliyo la doonayo in laga faa'iideysto oo fursad ah oo nabiga kaleey salaatu wasalaam inoo sheegay ilaahay ducada inuu aqbalo waxa ka waa ilaa 5 waqti ayaan xusaynaa koow waxa ka ah habeenku marka uu 3 loo qaybiyo ee 2 meelood tagaan ee ay qaybina harsan tahay ayaa kamid xilliga suxuurta dabcan way nabiga kaleey salaatu wasalaam ayaa wuxuu leeyahay maartay waxa jooga fi leyl aakhir wa dubur salawaat al maktuba ilaahay maartay subhanahu wa ta'ala marka la bariyo waxa weeyaan maartay waxa weeye nabiga kaleey salaatu wasalaam baa leeyahay ducooyinka kooba ugu ajiibsan ama la aqbala nabiga wuxuu kaleey salaatu wasalaam ducada dhacda habeenka marka saqda dhaxay xilliga suxuurta iyo salaadaha marka laga baxo dhamaan marka salaadaha laga baxo gadaashood ama dabadooda waxa kale xilliyada ducada la aqbalo xilliga labaada eedaanka iyo aqiinka dhexdooda eedaanka iyo aqiimida inta salaada marka loo eedaamo iyo marka la aqiimo salaada maartay loo kacayo inta u dhaxaysa ilaahay ducada uu aqbala nabiyullaahi maxamed kaleey salaatu wasalaam xadiiska Anas ibn Malik ilaahay haleeha ka hadu ka soo warinay wuxuu leeyahay la yurad du'a bayna al-adaan wal iqaama imaam Tirmidhi ayaa xadiiska isaguna warinaya iyo Abu Daawud wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu wasalaam ilaahay ducada ma joojiyo oo maartay waxa weey ma celiyo ducada dhexdhacda eedaanka iyo aqiinka dhexdooda meesha saddexaad waa marka aad sujuudsan tahay nabiyullaahi maxamed kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay adoonku wuxuu ilaahay ugu dhow yahay waa xilliga uu sujuudsan yahay ee xilliga ka faa'iideysta oo fa aksiru fihi ducada farabadaya xilliga ilaahay loogu dhow yahay oo xilliga fooda dhulka lagu hayo la sujuudsan yahay ilaahay barya oo maartay waxa weeyaan waa la idinka aqbali doonaa meesha afraad waa maalinta jimcaha saacad kamida maalinta jimcaha waxa jirta saacad la saacatul ijaaba saacada ilaahay wax aqbalo oo ku jirta waa saacad maartay waxa weeyaan qofka muslimka ilaahay waafajiya maartay isagoo tukanayo ilaahay wax weydiisanaya illa ilaahay uu siiya subhanahu wa ta'ala saacadaas way qarsoontahay laakiin culimadu waxay u badan yihiin inay casarka xilliga casarka ay tahay marka nusuus fara badan la isku soo guuriyo meesha shanaad waa maalinta carafa maalinta 9 ay tahay bisha waxay dilxija ee xujaajta dadka beedka ilaahay xaramka tagay ee dawaafayana ay taagan yihiin buurta la yiraahdo carafa dadka kale aan tagina ay soomayhiin oo ah maalinta 9oodka maalinta waa la aqbala ducada sunnah maxamed sheegay kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay duco waxa ugu khayr badan oo ugu fiican ducada la ducaysto maalinta carafa maartay waxaana ugu wanaagsan oo ugu khayr badan aniga iyo nabiyadii igu horeeyay waxaan ku hadalo hadalka ah la ilaaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir xilliyada aynu sheegnayna qofku waa inuu ka faa'iideysto oo si gaar ah meel ugu qorto ilaahay inuu bariyo iyadoo goor kastana la doonayo ilaahay inaynu barino oo aynu gacmaha hoos dhigano ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka barayaa inuu dambigeena dhaafo kii waalidkeena dhaafo ummadda muslimiinta meel kasta joogan dambigooda dhaafo ilaahay inuu naxariisto dadkii inaga horeeyay muslimiinta ilaahay inuu naxariisto inagoo markaan dhamano ilaahay inooga daba naxariisto saasan ilaahay weydiisanayna salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh